الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إسلامك iyo dhibaatada dhaqaale sida uu xaliyay waxaan shaki ku jirin adduunku in hadda uu ku tartamayo dhaqaalaha waxyaalaha lagu tartamayo ay kamid tahay loona kala qaybiyay dawlado sabool ah oo faqiir ah oo gacanta hoorsada iyo dawlado qani ah oo iyagu hodan ah islaamku sidee buu u dhiirigeliyay ama u xaliyay mushkiladda dhaqaale ama saboolnimo oo ummadda uu u doonayaa inay noqoto ummad hodan ah oo dhaqaale leh oo gacanta sarreysan noqoto aliyadu ulya khayrun min aliyadi sufla buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam gacanta sare ayaa ka fiican ama ka fadli badan gacanta hooseysa oo hoorsanaysa wax ay wax dalbanaysa islaamku ma aha dadka muslimiintu inay dad tuugsadaan ama wax bariyaan ama wax adeeg ama dad kaleeto ay gacanta u hoorsadaan shan arrimood ayaan tilmaami doonaa insha Allah taala shan qodob oo islaamku uu ku xaliyay mushkiladda dhaqaalaha arrinka koowaad waxa weeye dhulka oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sakhiray bani aadamka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu beeray xoolo buu ugu beeray geel iyo ari iyo lo' leh ilaahay quraanku ku sheegay ancaamta inuu isagu noo sameeyay oo ilaahay noo abuuray annaga nafceena inaan ku intifaacsano wax ka cunno caana ka cabno hilib ka cunno haragooda dhogortooda waxa ku jira oo dhanna wuxuu nooga dhigay dheef ilaahay subxaanahu wa tacaala walancaama khalaqaha lakum fiiha dif'un wamanaaficu waminha ta'kuluun walakum fiiha jamaalun xiina turixuuna wa xiina tasraxuun sidaas oo kale ilaahay dhulkii wuxuu nooga dhigay beero wuxuu noogu daayay webiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga samaysay aan ugala soo baxno ينبت لكم به زرعا والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ثمرات إلهي سبحانه وتعالى سيدا سوكالي بدي بو إلهي نوص خيري سيئن وقوقنا عصنو مراكبتو أمرتو خيراتنا يكلون إيا هلب فريشنا عن ولا صوبحنو وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا مركا مشكلة دا أرنكا وكوحليو كواد وحوي خيرات كاس إن لو ترتمو لما مشو لغا قيستو للا صوبحو أرنكا لبا إسلامكو وحو لديري شقة لعنت أدونكنا هدا وحيالها مالين والبعبر كذا وعبروا حلو أرنا يا unemployment ما أنت مريكان أنت سوقار unemployment وضن كاس أنت سوقار ماليزيا مركز يسوق عيسى وحلو قياسي إياه أو 2 مليون مركز هاي تقريبا أما دوري 8 مليون إلى سميسي أما أبورتي شقوين دتك يو أبورتي مريكان كأول بقولوا مليون مركز شقوين كو أبوري لها boqolkiiba konton inay 10 sano gudahood ay abuurtay iyadoo shaqooyin dadka u sameeyay oo dadkii oo dhan ay shaqo heleen waa waxyaalaha marka dalku ku hormaray marka islaamku wuxuu dhiirigeliyaa dadku inay shaqeystaan nabiga kaleey salaam ninkii u yimi ibrahim wuxuu ku yiri orod qaado xarikaas qaado oo tag baadiyo qoryaha soo ururi oo suuqa ku iibi markaas uu xadiiskaas ugu sheegay Zubayr ibn Awwam uu wariyay midkiin inuu qaato xarig oo uu buurta tago وقرية صور ريال شتو أو سوق جيو أو إيبيو أو إلهي سبحانه وتعالى وجهي سوق كافيو ما ركت إنه ددو حوي ديستو أيه وقفي عن ضدك إنه حوي ديستو أما هسيان أما هوديدان أرنك صدحات أو إسلامكو وما ركتي كحلي أرنت وحوي جناسك إيو وح أبورك إيه شقيسك النبي عليه السلام وحليه شقوها أبوه نفسا ganacsi mubarak ah tijaara mabruura ah oo beec mabruur ah ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuu barakeeya hadii si run ah oo fiican loo sameeyo ilaahayna quraanka kariimka ah wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba wa akharuna yabtaguna yadribuna fi al-ardi yabtaguna min fadli Allah fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fi al-ardi wabtaghu min fadli Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur hal rabaa dadku inay ganacsadaan hal rabaa gabdhaha guryaha jooga iyo ragga dibadda jooga iyo qof walba inuu ganacsi sameeyo wax abuuro shaqeeyo wax soo saaro ganacsiga iyo kala iibsiga xorta ah oo dadku wax kala iibsadaan oo wax kala bedeshaan oo wax kala ganacsadaan islaamku ayuu dhiirigeliyay horena waan u sheegay hadal kale ayaan hore u sheegay kitaabkii Abi Yusuf waxa ku jiray ganacsiga xorta ah ama private sector-ka in la xoojiyo inay tahay waxyaalaha dhaqaalaha keenaya arrinka afraad waxa weeye zakada oo ilaahay waajib ka dhigay diini ah oo dadka baahan laga qaado kuwa hodanka ah laguna celiyo kuwa faqiirka ah
sideed arrimood buuna ilaahay subxana watacaala sheegay oo sadaqada lagu bixina zakada lagu bixinayo inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin walcaamiliina calayha walmualafati quluubuhum fi riqaabi walghaarimiina wafi sabiili illah wabni sabiil waa arrimo bulshada lagu horumarinayo wey xataa kaabiyayaashii dhaqaale baa ka mid a arrinka shanaada ugu dambeeya waxaa weeye awqaafta dadka muslimiinta ay sameeyaan haddii aynu taariikhda islaamka u noqono isbitaalada kaabiyayaasha dhaqaale buundooyinka jidadka jaamacadaha iskuullada in badan oo ka mida waxaa samayn jiray awqaaf baa lagu samayn jiray awqaaf dadka ganacsatada ah dadka tujaarta ah dadka madaxda ah dadka wasiirada ah amiirada dadkaasoo dhanbe waxay ku samayn jireen awqaaf bay lahaan jireen ay u sameeyaan jaamacado iskuullo maxaa buundooyin jidad ceelal waxaasoo kale marka arrintaasna waa in la nooleeyo oo dadku ay ka qayb qaataan arrimahaas ayuu shantaas qodob ayaa ugu muhiimsan heelaha islaamku uu kula diraray faqiirnimada iyo saboolnimada dhaqaalihiisana gundhiga u ah ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo saboolnimadan ummadda muslimka allah ka saaro wallahu tacala aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi